marka ani waxaan rabaa Caribiyaan degnaan jiray ilaa 1989 gabadha isiiseen wiil meesha ay u dhashay jaamac waa ila socdaa meeshaan asku dhashay jimaal oo ka weyn asagana waa jiraa daarweeda aroos u dhisni marka aad u maasantihiin aniga Carabi markii degnay waxaan ku tukun jiray masaajidka Sheekh Tawana markii maqribkii asmaarkan assalaamu calaykum adha yaasiin adii jiray marka yaasiin kan aqrin jirnay salaatu subax waxaan ku tukun jiray masaajidkan hoosoo Sheekh Cali asimaamka Allah una loo dim waa dhinteen imaam yaalkii salaatu subax aayadaha dheer oo quraankaas ku tujin jiray waa jeclay aayadaha iide marka masaajidkan ku tukun jiray ducadii iidaheed aan rabaa inaan ka run sheego ducadii sheekdaas ay ka shaqeeyeen aan rabaa inaan soo bixi oo meeshaan nolosheeda aan beddelay maxay yeelay 20 sano soo dhaafni hoggaanka dhulkan aad u xumahay runtii markay sheegni development waxaan ugu weyn oo la taaban karo waxaan ugu dambeysay waqtiga shacbaan isku jiray iskuulahan isla girls boys berigaas la dhisay marka development la taaban karo berigaas noogu dambeysay marka la yiraahdo Carabiya ward marka la yiraahdo ani waxaan rabaa horumar la taaban karo inaan keene oo dhulkan hadda la yiraahdo heegaalow ilaa mataa arba waa dhul beereed oo weyn badan xoolahana waqti kastaba xoolaha meeshan ku haysan abaar ay u dhintaan waqti kastaba waxa la leeyahay loodiyan soo qaadiyo makiina rodangeeyo tana rivange arintaas in laga baxa oo dhul weyn oo 5000 acre oo dhulkan la waraabi heegaalo ilaa mataa arba dhamaala ceelal laga suro irrigation laga sameeyo oo nolosha lagu bedelo abaaraha lagu yareeyo aan rabaa inaan ka shaqeeyo security waa arin soo noqotay oo dib weyn maxay xuduudkan ilaa biibuwan ilaa iyo kamar baxaw waa 75 kilometer amal intaas xuduudan Soomaaliya waa wadan iska liciibsan dawlad fiican ma haysto inaan dawlad lukaas ka dhalinne oo xuduudkan nabad si looga dhigi lahay security-gan aan xoojinaan rabnaa magaalooyin oo xuduudkaas ilaa 3 magaalo aan rabaa inaan ka dhisna oo security-gan border-gaas iyada lagu xoojiyo dhashayga Xuseen Xareed ilaa waqtiga shacbaan la sheegi jiray laakiin nin hergelin lama arkin in meesha tuulo laga dhigay ana haddaan soo gala meesha magaalo ay noqonaysaa dhibkaanay beer cawayoonka dhacaaba maba dhici lahayn mar horeba ma aragti xuduudka lagu reebi lahayn marka waxyaalo badan oo isbedel aan sameyn rabaa waxaa ka mid ah sinaanta oo dadka deegaanka degan waxaa jirta baasariga si fiican looma hele waxaad arkaysaa dad Nairobi iska degan oo maaragtay dhulkan ka carari becsharaheeda oo lacag haysta laakiin baasariga inta ka soo baxda ay kala siinahay laakiin waxaan la siin doonaa baasarigaas dad u baahan oo saboolka oo iskuul iska bixin karin ayaa mudnaashi ugu horeey la siin doonaa marka cadaalad iyo sinaan inaan soo celiyaan rabaa dhulkan lagu soo celiyo wadadan feeri markastaba contract u soo baxda hadda saaki ilaa iyo 1 saac amal ka sii badan soo soconay waa meel nus saac loo socon lahay wadadii markaan lacag ku soo baxday laakiin lama hagaaji iida kilix ma wadooyinka maarta aada oda ee ku kala hooso ilaa hubiga aada u lacibsan yihiin kama warbaxa waaragteen dhibka haysta wax shaqo weyn oo hadda laga hayo malaha wax u soo baxayna malaha waxaas kulli waxay baahan tahay in wax balanka dawladda la geliyo oo markaan laga shaqeeyo sidii loo hirgelin lahay wada fiican oo lagu shaqeeyo oo tuulooyinka isku xirta aan rabaa inaan hagaajiyo meeshaan magaaladan satiimo fiican ma laha satiimadan meeshaan waa solar waa 60 kilowatt kalex laakiin magaalooyinka sub county-ga waa 100 ilaa 150 kilowatt oo solar loo xiraa si maaragtay horumar loo gaaro marka arrintaas isbedelan ka sameyn doonaa satiimo ku filin oo becsharo lagu samaysan kara ayaan rabnaa inaan maaragtay aan dhulka ka dhalinno biyaha saad sheegteen tacliinteedan leh sanado badan waa ka soo shaqeey qofka asagoo inta joogo shaqo Nairobi ka qaban karaa asoo Carabi ka tagin haddaan la helo farsamada iyada
oo wifi ku filin kombiyuutarro iyo farsamadii haddaan la hele qof asagoo intuu jooga shaqaysan karaa hawshaas iyada experiencekeedan haya dheerweed waxaan la hadli nimin oo jarman oo ka shaqayna meel yidhahaa mooyaal agteeda meel turbil yidha center weyn ay ka dhisahayaan oo farsamo kasta lagu baranaa waan fiiri anoo ku fikirsan war arrintan carabi camal malige oo sancada oo kale de si ay ugu faa'iidaystaan waa la soo hadli kulluun waa keeni doonaa niminka iyada si maaragtay assessment u sameeyaan marka waxaan rabaa dhulkan horumar inaan gaarsiiye laakiin taas idinkaa idinku xihan tahay kuraad idinka ahaay fadhiyaal badan oo Mandera ka sheegay waxaan u sheegay beriga hore dadka Nairobi la fadhiisanaa odayaalaas qofka isku soo afgaranaa oo leen keena arrintaas in la bedelo waa ninkiis idinku u malaysiin inaad isbeddel keeni kara inaad dooran kartiin marka aniga dhulku waan garanaa sidii loo kala degan yahay garanaa iyo sidii maaragtay horumar loo gaarsiin lahay inaan markaan waxaana arrintan oo maaragtay gogashan afka weytaan loo fidina carabi waxaan ugu bilaabay waxaa waa in meeshii maaragtay oo constituency-gan muhiimkeedii ay tahay inay carabi tahay taasaan carabiga u bilaabay markaas ka dambe aan Mandera u gudbin doona reer carabiya wordkan ninka ay doorato umagimbar soo gala runtii marka la sheego Mandera East carabiya codkooda ayaa lagu soo galaa ama lagu dhacaa ninka hore maaragtay ku soo jiri waa rideen hadda inaad soo geliseen asagana waa fiirinaysiin maaragtay wixii maaragtay ostari qaybo hoos ninka hore ugu ficnay waa jiraan meelo badan oo iska gaabinay waa jiraan anna waxaan malaynaa meelaha iyada inaan hore u sii wadi kara oo isbeddel keeni kara markaas fiirisa doorashada Mandera East ilaa 202 iyo maanta waxaa laga joogaa 5 doorasho 5taas doorasho reer Mandera East isbeddel ma ay rabaan waxay ku tus inay weli ay qancin qof qancin ay weli helin 202 shacbaan as doorateen 207 haddana waa shacbaan waa badasheen qaras aad soo geliseen qaras marka ka baxay waxaad soo geliseen Cabdille Someen Cabdille haddana waa ka baxay Cumar aad soo geliseen haddana waa ka baxay weytaan aad soo geliseen meeqaa doorasho waa 5 jeer waxay ku tusi marka dadkii reer Mandera East inay weli dadayahayaan qof ay anfacaan oo ku dagaan horumarkeeda aniga waxaan u malaynaa qofkii idaas ku degi lahaydeen inaan nahay oo maaragtay aad ku qanci doontiin horumarkeeda marka hadalka kuma daahinaay waxaan rabaa reer carabi inaan fursad sii ka dambana haddana hadalka aan ku soo noqdo waxaan rabaa inaad iqaadiin inaad ii soo baxdiin oon isla shaqaynay ilaa electionka 2027 ay soo gelisiin aan in shaqee aan rabaa oon isbeddel weyn aan gaarsiiye oo riyadii dadka odayaalkii meeshaan ma horo gaagoof maaragtay aftiin iyo sheeda culimada aan sheegay riidoodii inaan ka run sheegno oon dhulka horumar gaarsiin aan rabnaa marka intaas waa